markii dawladda ay dhacday ay burburtay waxa moodaa energy oo dhan waa diiba haduu shidaal noqon lahaa iyo haduu koronto noqon lahaa waxay noqotay in oo zero laga soo bilaabo marka maalmihii oo horeeyay oo noo bilaabanayo waxa ka bilowday si toos ah looma aadin korontadii waxa loo aaday waxa bilowday dalkii waxa ka bilowday warshado baraf waxa ka bilowday ceelasha biyaha waxa bilowday shirkadii isgaarsiinta iyagaas marka waxay bixin jireen koronto marka wixii ka bataa iyaga isticmaalayeen ay xaafadaha siin jireen korontaasi markii hore waxay ku bilaabatay iyadoo habeenkii la isticmaalo kadib waa sii xoogaysto waxay bilaabeen marka inay midoobaan oo isu tagaan oo korontadii ay shirkadii isku biirbiiristaasna waxay sii keentay marka inay xoog badan sii yeeshaan aakhirkii waxay isugu soo urureen 3 shirkadood oo ah shirkadda Beko oo shirkadda ugu weyn oo korontada ah iyo shirkadda Muqdisho Power iyo shirkadda Blue Sky 3 shirkadood isugu soo urureen oo korontada ah oo runtii hadda si casri ah maray inay hadda solarki ay dhigeen oo hadda markaa fiiriso beeraha ay sameeyeen oo loogu talagalay inay koronto kaga yaraadaan dhinaca generatorada aad u ballaaran yahay hadda beeraha ay sameeyeen oo waaweyn marka waxaan dhinaca korontada aad u fiican yahay meel fiican ay hadda maraysaa runtii waa kuma hadlaynaa 3 shirkadood ugu waaweyn oo korontada maanta level fiican ka gaaray ugu weynta shirkadda Beko oo runtii aasaastayba inay shirkadaha midaysaba iyadu oo isu geyso shirkadaha yararka ah wadan walbana inta oo energy-ga oo ka hela horumarkiisa ay ku xiran tahay haday koronto noqoto iyo haday noqoto gaaska cuntada LPG-ga ah iyo haday noqoto shidaalka caadiga ah waa horumarka dalka waxa base u ah energy-ga base u ah waan rajaynaynaa shirkadda bandhigan guuleystayaasha ee Soomaaliyeed shirkadda Hormuud ay base u tahay oo runtii sanad walba hal shay inta discussion ka sameeyso horumar laga gaarana waa kuma hadlayna waana mahadsantiin waana sanadka afraad oo sanadkan ay noo qabato runtii waana wax aad u qurux badan oo sanad walba hal meel ay target ka dhigataa targetka meesha ay ka dhigatana panela laga sameeyaa research laga sameeyaa ummadda ku baraarugta wax badan laga faa'iidaa marka waxaan leeyahay waa mahadsantiin bandhig guuleystada Soomaaliyeedna aniga ku hadlay magaca carruurta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed waa idin hambalyeynayna waxaan ka soo qayb gali doonaa waan ku mahadsantiin shaqada bulshada aad u haystaan